kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maamul goboleed cusub oo dhawaan loogu dhawaaqay magaalada London. haddaba maamul goboleedkan ayaa waxaa loo bixiyay Mareeg State. munaasabadan way ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid dalalka Afrika, Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo waliba dalal kale oo ka tirsan qaaradan Yurub. ujeedada munaasabadan ayaa waxay ahayd gunaanad shir soo socday 3 sano oo lagu gogol xaarayay dhismaha maamul goboleed cusub. walaalayaal caawa xafladan waxa ay ku saabsan tahay waxay ila tahay inaad ka wada dheregsantiin hase ahaatee waxaa laga maarmaan ah in la idiin sheego waxa ay tahay iyo waqtiga la geliyay inay suurto gasho arrintan caawa halkan aan isugu nimid. caawa shirka aan halkan u fadhino gabagabadiisii koobaad waxaa jiri doona gabagabo labaad. wuxuu sheegayaa ama tilmaamayaa dadkii Soomaaliyeed oo ognahay baaba'ay dhibaatooyin dhan kasta la soo mareen. waxaa la bilaabay annagu uma aanan horeyn in degaano dalka kamida la isku duwo si looga kaashado markaa nabadgelyo dhaqaale arrimo bulsho intaba. waxaan daba joognaa oo aan isleenahay dhulalka dhibaataysan oo cid u maqan aysan jirin ceelna u qodnayn. haddaad tihiin dadkii ku noolaa dibadda amaad intaad tilmaamo siisaan mustaqbalka ay ku dhaqmaan. waxaan idinka dalbaynaa mar haddaan ummado dhibaataysan intaan waxu samayno rabno in wax lagu qurxiyo ama lagu badbaadiyo noloshooda inaad nala taageertaan. marti sharafta halkan fadhida rag ka mid ah waxaan rabaa inaan mikrofoonka ugu yeero hadeer haddii ilaahay idmo xaaji xasan qaroofo falyatafadal. mudanayaal iyo marwooyin marti sharafka meesha isugu timid kasoo qaybgalayaasha faraha badan ee nooc walba leh culamaa u diin leh akhyaar leh barbaar weyne leh gabdha leh cid kasta leh 114 cadadka quraanka ayaan idinku salaamay. bacdi salaan aniga xaaji qaroofo baa la yiraahdaa 14 maalmoodaan joogaa wadankii aan ka imid. wax badan idiin sheegi maayo. nasiibkaygana waxay noqotay magac u bixinta gobolka cusub ee lagu diirsan doono insha Allah inaan ka qayb galo ayaa nasiibkayga noqotay. maamulka la magacaabay Mareeg State waxaan ahay ninkii garabkiisa la taagan muruq iyo maal. waxaan kaloo intaas ku darayaa anigoo ku hadlaaya magaca Yurub, UK ha naqato, Yurub ha naqato, America ha naqato, amba kuwa Afrika jooga ha naqato, magacoor anoo ku hadlaaya waxaan awood u sii haynaa in Mareeg State cid ka hadli karta amba cid aan kala tashayna aysan jirin. marka intaas waxaan raacsiyaa waana ku dheeraadeen alla iga ahaado. waxaan samayhaynaa meesha aan ku samayna ayaan uga tagaynaa cid ka yeelimayno. dhammaantaanya waa inaan aadno wadanka, waa inaan wadanka aan wax ka qabanno. joogi mayno Yurub,
qabowna joogi mayno waddanka cid alla ciddii midnimada soomaaliya diidan waa ka hortegaynaa waana ka dagaalamina insha allah haddii la yidhaaho anigoo ku hadlaya gabdhaha mudulood midda joogta iyo midda hawsha noogu maqanba waxaan hambalyo u diraynaa gobolka cusub maamulkiisa oo aan leenahay waxaan idinka sugaynaa waxa weeye howl aad iyo aad u ballaaran haddaan nahay gabdhaha mudulood iyo asxaabtooda caawana la fadhiyo oo na garab taagan waxaan rabnaa inaan iraahdo eray ah haddaan maanta higsaday dawladaha horumaray waxaan rabaa eraygaas inuu noqdo mid ah hadal yar iyo howl badan waana mahadsantihiin war dunidu kala darani ceel dheer ma daawateen dunidu kala darani ceel dheer ma daawateen dalxiis iyo dibirta deegaanka ma u tagteen dekada ma daydeen sida uu maalku uga degaa bitoorada jooga isbitaalka dacal walbaba daryeelkiiyo daawadoon daalay lagu lahayn adoon dalbanaynin oon doolarka iska bixin layla duban iyo ma soo daaqdadhay durdura ninkii isdareema waa inuu dalkeenni tago war bareeka ma raacdo beledkeenna ma u baxdeen bareeka ma raacdo beledkeenna ma u baxdeen bannaanka mareegna bulshadeenna ma u tagteen cirkoo bilda'ay waddankoy barwaaqa taal baylaga wallo-aad iyo baarweyntiyo badqaba idihiyoo soo barqaaya ma booqateen baryaadoon joogni midabkaadu ma isbedelay caano barqamaalahaa beesha lagu yaqaan intaasu waxaa waaye isteed mareeg isteed ha noolaato wax badanaa la sugaayey dadka mareeg dego waa dadkii hoggaamin jiray soomaalida lixda ah waxaan leeyahay waa soo daahdeen talyaanigu wuxuu yidhaa nomai tardi marna lama daahin marka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maadaama howl badan ay soo mareen annagana qalbigaan ku haynay shaqada ay ahayn waan la hayni marka aad iyo aad waa u mahadsan yihiin mareeg ha noolaato marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay weynaay oo waaxidahay oo na khalqay oo islaam naga dhigay ayaan u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta leh gogoshaan dhigay oo ummaddan isu keenay oo ka soo shaqeeyey muddo 3 sano ah in ay dhisaan stateka la yidhaahdo mareeg state horta marka ugu horraysa mareeg state wuxuu ku yaallaa bartamaha soomaaliya meesha soomaaliya barta weeye waxaa kaloon idiin sheegayaa horta anugu inaan ka mid ahay mareeg state waxaan ka mid ahay dadka qaybta libaax ku leh ayaan ahay anoo ku hadlaya magaca guud ee soomaaliyeed magaca kale oo asaga ah anoo ku hadlaya waxaan idiin sheegayaa mareeg state waxaan leeyahay waad dadaasheen waa mahadsantihiin waad ka soo shaqayseen haddana waxaan idin leeyahay inta kale oo idinka dhimanna waa idin garab taagan tahay waana idiin imaanayaan waana idinla shaqaynayaan waana idinla mid waxaana ballan qaadaynaa in aan garabkiina taagannahay oo aan mareeg state aan ka mid nahay kana mid noqonayno waxaan rajaynayaa mareeg state in uu noqdo kii ummadda soomaaliyeed isu keeno oo marka u horreeyo isu keeno hawiye isu keeno soomaali u gudbo soomaali isu keeno inuu noqdo ayaan rajaynayaa waxaan idiin sheegaa cawada dowladdayni dhexe 91 markii ay baaba'day dib in loo unkala doonahayay waa suraab weysa eedaasna waxaa la saaray marmarka la yidhaha hawiye
eedaasay u qallucneed oo nala saaray waanu ekeed hawiya cawada haddii la eedda saaray cawada eedda cawada keenaysaa waa run eeddu wafartaa nagu godneed haddaan nahay hawiye waxad af lagama dhowrtaa la yidhi soomaalidu waxay tidhahdaa waxad af lagama dhowrto wixii jira waa la sheegaa qabyaalad ma aha hadalka noocaasa marka la leeyahay waxa weeye waxa la soxo runta la sheegaa la doonayaa waxa weeye hadday farta nagu godneed caawa inay hartay baan ka marakacayaa anigana maxaa yeelay niman horseed hawiya horseed hiraaba horseed mudulooda kacay ayugsawada nimanka mareeg sheegtay waa horseed muduloodna horseed hiraab waaye hiraabna waa horseed hawiya waaye ogaada sidaa daraaddeed maanta kabacdi khilaafku waa naga zuulay horakac mogmaan gadaal ma jiro nimankaasaan horkacayo ogaada ayagana waxaan rajayhayaa say u joogsadeen inaysan fadhiisan hore u socdaan gobolkan waa magacaaban yahay waana jiraa waxaad yeelaysiin meel laydinka rabi jiray ka soo baxa hor socda maxaa yeelay beesha mareeg state soo agaasintay maamulkeeda waa tabaynay waa sugaynay wax badan aan sugaynay hawiye oo dhan baa sugaayay hawiyana Soomaaliya oo dhan baa sugaysa xaqiiqadu saas weeye mareeg state oo ku taala meeshii ugu muhiimsanayd oo Soomaaliya isku xiraysay ama bartamihii dhulka hawiyaha ku taala inay u sameeyaan maamulada laga soo bilaabo galmudug ilaa Jubbaraas state oo ugu xigta dhinaca koonfureed inay u sameeyaan oo u istaagaan ambareelle ka dhaxeeyo dallad ka dhaxayso inay sameeyaan oo annaguna aan la samayno marka hore waxaan u mahad celinayaa xafladan quruxda badan sida wanaagsan loo soo agaasimay ummadii ka soo shaqaysay rag iyo dumarba waxaan kaloo u mahad celinayaa 3 sano muddada ah iyo dheeraadka tiimkii soo waday hiraan tiimkii soo waday mareeg state runtii maxamuud xaaji iyo tiimkiisu dhabar adeeg tiro badan bay soo mareen maxamed xaaji waxaan leeyahay ajri xasanaad Allah ka siiyo annaguna waa taageersannahay mareeg state waan taageersannahay waxaa sharaf gaara ii ah anoo ka soo jeeda jaaliyadda iyo odayaasha SSC State of Somalia inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta badan ee sida heerka sare ah loo soo abaabulay oo aan garanayo dadka soo abaabulay oo aan in badan dhex joogay oo aan garanayo waxay galaan iyo waxay gudaanba waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oo aan soo dhawaynayaa anigoo ku hadlaya magaca aan sheegtay iyo kaygaba mareeg state of Somalia mareeg state in muddo ah soo turxaan bixinayay inay maamul goboleed u sameeyaan dadka deegaankaas anigu markii si loo fiiriyo waxaan ku abtirsadaa deegaanka loo sameeyay maamul goboleedka mareeg state marka waxaan ku faraxsanahay waxaan si gooniyana ula socday in muddo ah inay walaalahay ku mashquulsanaayeen inay dhisaan maamul goboleedka mareeg state ayagoo diidanaa in ay dadku qaar inaysan ka soo horjeesan sidaas awgeed waxaan kaloon si gooni u sii xusayaa inay ka horeeyeen maamulada maanta jira xoogooda mareeg state ha noolaad ha wada jiraan
Soomaaliyeed yaxyaa wadani ummada Soomaaliyeed yaxyaa wadani albaabada nabadda faydo yaxyaa wadani islaamnimada maqirahay yaxyaa wadani watiyan ubadkayn ilahayn yaxyaa wadani watiyan aqalkeen dumin yaxyaa wadani dhaqaali uu idlaade yaxyaa wadani isku imaado yoro yaxyaa wadani mareegistayba lagu midoobo calanku mudane lagu maqsuudiye waaba bariyay bilicsan aroorya bacsan maalin boqore waxaan u hambalyaynayaa ama aan mahad gaara u celinayaa ragga ka soo shaqeeyay isteedkan inuu dhismo hirgalo maantana ahaato maalinkii loogu talagalay ilaahay xaggiisa ay kaga soo dhammaatay in intii lagu guulaysto horseedka noqota ee Soomaaliya oo dhan ay diirsato ay ku hergesho dalladeeda ayna walaahi ka dhigan ugu duceynaynaa mareeg isteed waxay ballan qaadaysaa inay gaarsiinayaan meel allaale iyo meeshii looga baahdo waxyaabihii ay u baahnaayeen ubadka Soomaaliyeed ee u baahan waxbarashada caruurteena oo aan meel fasax ah aynaan geysan karin oo halkaan aynu ku hayno Soomaaliyeed tooso isku tiirsadayay adbakiina taagdaranay taageera waligiine Soomaaliya ha noolaato ha israacdo waxaan caawa aad iyo aad ku faraxsanahay oo aan la soo koobi karin himiladayda hadalka xataa inuu iga dhumaan u malaynaya oo emotion noqdo farxad darteed intaan oo Soomaali ah oo u taagan inay Soomaaliya nabad hesho mareeg isteedna sacbada u tumayaan waxaan u malaynayaa dad badan ay iga horeeyay wixii Soomaaliya laga dhigi lahaa duco iyo amaanba waxa tiriyay diyaashay iyo walaashay qaybtoodii aad ay uga soo qaateen waqtigoon ugu yar waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya nabad iyo barwaaqo degdega Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u keeno walaalayaal waxaan idin sheegayaa muddo laga joogo 3 sano ayay arrimahan ka bilowdeen North America kadibna ay soo gaartay Europe lagu fidiyay wadamada Carabta ilaa iyo Afrika markii barnaamijku saas ku bilowday walaalkay Maxamed Xaaji Cali ilaahay khayr badan ka siiyo ayaa arrintan horjoogo wahaa maskaxda iyo fakirka ka dambeysay maamulkan ayaa iska lahaa Xaaji Maxamed isagoo garab iyo iskaashi uu ka helay dadkii uu fikirkan u soo bandhigay muddada 3 sanadood ah waxa aad iyo aad ugu howlaneen in beesha waceysle ee diasporada midowdo annagoo hirgelinayno ilaahay mahadiis ilaahay waan ugu guuleysay oo waxaan gaarnay in jaariyada beesha ay ku kala sugan wadamada Mareykanka Canada Europe dalalka Carabta iyo Afrikaba ay iyaga oo midaysan doortaan gudiyo ka shaqeeya soo celinta mideynta beesha iyo horumarinta deegaanadeeda iyadoo ugu dambeyntii bishii Maarso 2010 magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka isutaga Imaaraadka shir aan ku qabsanay kuna go'aaminay inaan u sameeyno dawlad goboleed iyo maamul goboleed deegaanada ay beeshu degto haddaba waxaa la doonayaa inaan ka faa'iideysano fursadihii aan luminay muddadii 20 sano ahayd oo dhibaatooyin iyo burbur aad u culus nala soo darsin iyadoo loo baahan yahay inaan qaadano darsi bal madow ah inaan galnay gadigeen sida aan u nahay Soomaali dawlad goboleedka beesha waceysle waxay qayb ka noqonaysaa dawlad federaalkii loo sameeyo dalka Soomaaliyeed maamul goboleedyada
beesha waceesle oo ka kooban 4 gobol waxay qayb ka noqonayaan maamul goboleedkii loo sameeyo regional authority dalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa Soomaaliya oo dhan inay ka fikiraan arrintaas dad wax yaqaan naga buuxo diasporadana waxaan ku boorinayaa roolka ay leeyihiin way gabeen waa in laga hadlaa waa in la sheegaa waxa xaqaa'iq ah oo jiro dawlad la sameeyo oo la taageero macna nooma sameynayso haddii wixii lagu taageeraysan qabanin marka waxaan idin soo jeedinayaa maanku wuxuu ku maqan yahay dibadda maankeenni aan isku celino aan isugu roonaano in annaga tashanno oo aan kaalin ka qaadano mustaqbalka Soomaaliya lagu soo celin lahaa haddana waxaan jeclaan lahaa nin walaalkay oo maaragtay oo fadhiya howlka inaan ku soo dhaweeyo laba eray inuu yiraahdo inaan aad u ixtiraam waaye Dr. Xasan Basri insha Allah walaalkay Maxamed waa mahadsan yahay sababtu waxa waaye labadeenaba laba oday oo muddo soo shaqeynaya nahay dad hadda isbartama nihin muddo ka badan 50 sano waa isla qaadnaa waxaan leeyahay kaliya waxa waaye inta meesha fadhidana aan ka codsanayo dawlad goboleedka Mareeg ee lagu dhawaaqay nala qaada inta meesha fadhiday waahuba Mareeg dawlad goboleedka Mareeg amba state Mareeg inay hirgalayso wixii dhagaha loo taagayay ee muddada badan la soo ruuxayay ee 3 sano la soo waday ee aqliga badan qalinka badan dakhliga badan muddada badan iyo saacadaha badan la geliyay ee ummadda Soomaaliyeed wada sugaysay caawa ayay curatay ayaan joognaa maxaa la yidhaahdaa Mareeg state isweydiin male marka Mareeg state وكفاك نابشير مرق استكي أفلحاك نابشير أروري إلى وكيل أروري إلى وكيل dadkani kala orda iyo ahaago baba kumaqan dadkani kala orda ahaago baba kumaqan abaaraha dhamaysayo afadood badnacay abaartu dhamaysayo afmaanta qabo kuwa abaaraysano afmaanta qabo kuwa ooya iyo dhawaco ildar kuwa ooya iyo dhawaco ildar marag isteedo ahahawki awada abshira marag isteedo ahahawki awada abshira anigu aad iyo aad baan u garanayaa reerka kan hadda isteedka kan samaystay odayaashii dawladda ku jiri jiray oo nabadda ka talin jiray oo dawladda qaranka ah odayaashii nabadoonnadooda ahaa waxa ka mid ah Generaal Daawud oo kaleeto Xuseen Kulmiye Afrax oo kaleeto Salaad Gabayr oo kaleeto Ismaaciil Ali Jimcaale Ismaan Geedi Mareeg State waxaa caasimad looga dhigay magaalada Ceeldheer dabcan dad aad u fara badan ayaa waxay isweydiin doonaan Ceeldheer waa magaalo caynkee ah
جاوديو كتب يقانيو من الأرض قينيو قبل بالحسن بي قبل بالحسن بي يشين ليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي بيلتا جاوديو كتب يقانيو من الأرض قينيو قبل بالحسن بي قبل بالحسن بي يشين ليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي وكان بين ويليا بين أولادي كان بلد دافي تخلقوا إلى شاء وتخلقوا إلى شاء بشير نولدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي وكان بين ويليا بين أولادي كان بلد دافي تخلقوا إلى شاء وتخلقوا إلى شاء بشير نولدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي بلدايو نفتو مذا بطغنيو عديدنا والقديد تغي بنياذا حالتي انتيدو حقافشي بيهونا هالعنايا دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي ركو بلدايو نفتو مذا بطغنيو عديدنا بنياذا حالتي انتيدو حدافشي بيهونا هالعنايا دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي علي باليو اللي بحب الكيسيو باقة بضليو وقرتونا كبوحدا وقرتونا كبوحدا بشين وليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي علي باليو اللي بحب الكيسيو باقة بضليو وقرتونا كبوحدا وقرتونا كبوحدا بشين وليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي يوم مغرمانيو بدك بيرهيريو ورشبيليو علباني بنعلقو طيدابا بنعلقو طيدابا بنشينو ليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي يوم مغرمانيو بدك بيرهيريو ورشبيليو علباني بنعلقو طيدابا بنعلقو طيدابا بنشينو ليدهي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي قدم ريقيو عقب حديديو خيرات كل كبوحو وباحي بيلا أبو باحي بيلا بشان العراي دولكو كلا بلاري ربي ولا سري ولي الدير ما بلدي قدم
intaasi aan ugu gudubno heestii ceeldheer loo sameeyey oo fanaaniintu ay ku luqeynayeen qaybta ugu dambaysa barnaamijkeygana waxaad ku arki doontaan waraysiyo gaar ah aynu la yeelanay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda bal inay nooga warramaan dareenkooda sida uu yahay waatan mulki muuse oo mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadkii munaasabadda ka soo qayb galay waxaan u arkaa barnaamij muddo 3 sano iyo ka badanba la sugayay aad iyo aad aan u faraxsanaa wax hirgalayana waa anigoo magacaygu yahay Carabo Weeli Jayte ku dhashay degmada Ceeldheer caawa xamaasadaydu aad iyo aad ayay u kacsan tahay maxaa yeelay waxaan samaysanay oo aan waayo badan la guuxaynay ayaan soo banaan dhignay caawa waxaan soo banaan dhignay inaan samaysanay mareeg stage baan samaysanay anigu waxaan ka mid ahay abaabulayaashii iyo isku dubaradayaashii barnaamijkan sameeyay waana arrin aan muddo badan soo wadnay maantana gunaanadkeedii ay tahay waana maxaan ku raahdaa aad iyo aad ayay u qurux badan tahay waa u jeedin inta isku timid maanta ummadda isku timid oo gees walba ka timid munaasabadan meeshan ka dhacda maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxadeeda mid la qiyaasi kara ma aha Banaadir State waa wax aan wada sugaynay wadnay maamulkan haddana aad iyo aad ayaan u faraxsanahay hadda hadal waa leegaga horeeyay waa mahadsantihiin Universal TV xafladda sharafta badan aad ayaa ummadii soo abaabusho ugu mahadcelinayaa anigoo ka tirsan degmada Galcad assalaamu calaykum waa mahadsantahay walaa aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijka cawada meesha ka dhacay dad badan oo maanta tolkeyga ayaan bartay aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan macnaha aan ka qayb galnay wallaahi habaryar ma sheegi karo sida aan u arko aad aan u faraxsanahay shucuurteydana aad ay u kacsan tahay waan ayidsanahay wassalaamu calaykum magacaygu waa Dahabo Weeli Jayte Mareeg State ayaan ka tirsanahay aniga gaar ahaan Dahabo Weeli Jayte aan leeyahay waana mahadsantiin haddaad tihiin Universal TV haddaad tihiin aad baad u mahadsantihiin waa wax wali aan soo marin oo aad aan ugu faraxna si zaayida ma malaysan karo dadna waa suuxeen dadna waa qosleen aad ayaan waytan noo saameeyay waa mid noogu cusub oo noogu horeydo waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan aad u quruxda badan leh oo Mareeg State waxaan dhilahaa guuleysta Mareeg State waxaan dhilaa mid Soomaali isku keentay Ilaahay ka dhigo What do you think about the new flag? As I can see you're wearing the Somali flag and the new flag that's come out. What do you think about this whole flag? I think it's nice, yeah. What do you think about this event today and the new flag that's come out? I am so happy. Obviously, I feel emotional to talk about this, but it's something exciting, and I'm very proud that finally we got, our own flag, and it's really something incredible. I would love to. It's kind of something like to start its beginning. We'll see how it goes throughout the world. magacaygu waxa la dhahaa Mahado Sultan Cabdullaahi Macallin ayaa la dhahaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anigoo kamid ah beesha Mareeg State aad iyo aad ugu faraxsanahay and I can't wait to visit there inaan martago insha Allah aad iyo aad u jecelahay dadkeygana Soomaaliyana aad iyo aad u jecelahay Soomaaliya ha noolaato munaasabada meesha ka dhacday waa munaasabad aad iyo aad u weyn waa munaasabad aan sugayno muddo badan caawana aan si reyn iyo farxad leh uga soo qayb galnay oo aan dareenkayga iyo qiiradayda aanan ba soo koobi karin caawa idinku Universal TV haddaad tihiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ka soo qayb galka wanaagsan Mareeg State ama Mareegland aad baan ugu faraxsanahay dadka soo dhaweeyay maalmo badan u taagnay ayaan aniguna ka mid ahay oo ku jira waana ku taabacsanahay waa tahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa maamul goboleedka cusub ee dhabaantan lagu magacaabay waa tahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa maamul goboleedka cusub ee dhawaan lagu dhawaaqay magaalada London Mareeg State tan iyo kulanti dambe aniga iyo farsamayaqaankayga waxaan idin leenahay nabadgelyo